kulanti suuban asxaabtana daawanaysa waxaad ku soo dhawaataan channelkayaga. dad fara badan ayaa wax isweydiinayaan qaab sidee ah ayaad u soo jiidan kartaa qofka aad jeceshahay qalbigiisa. dunidan koonkeeda aynu saarannahay waxaa ku nool qoomiyado kala duwan kuwaas oo aan isku diin ahayn, isku af ahayn iyo sidoo kale isku dhaqantoona aan ahayn, balse waxay ka siman yihiin dareenka caashiqa, hinaasaha ama masayrka iyo waxyaabo kale oo badan. qarniyadii hore jacaylku waxa uu ahaa mid dadku ay si aad u qadariyaan, waxaan aan wada ogsoonnahay in dad fara badani ay u dhinteen jacaylka, halka kuwa kalena dhibaatooyin badan ay kala kulmeen waayaha caashiqa. qarnigan aynu ku jirno dad fara badan ayaa waxay aaminsan yihiin in jacaylku wax jira yahay, halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in jacaylku uusan ahayn wax jira, isla markaasna afka oo keliya uu ku kooban yahay. laakiin waa xaqiiqa in jacaylku yahay wax jira, kaas oo ka bilowma ka helitaan, iskuna beddela dareen, kuna abuurma qalbiga dhexdiisa. dad fara badan ayaa jacaylku waxay aaminsan yihiin inuusan jirin, kuwaas oo la dhihi karo waa kuwo aan fahansanayn jacaylku waxa uu yahay iyo micnaha uu xambaarsan yahay, waana dadka iyagu sida dhabta ah aan waxba u jeclaan. haddaba su'aasha meesha taalla ayaa ah, haddii uu jacaylku galo sidee ku soo jeedan kartaa qalbi kaa sii jeeda amaba aan ku jeclayn? arrinku sahal maaha, si fududna laguma heli karo qof, balse dhallinyaro fara badan ayaa arrintani iyagu ay la soo gudboonaatay, kuwaas oo qaarkood jacaylka sidii ay ku soo bandhigan lahaayeen dhibaatooyin kala duwan u maray, iyagoona in badan isweydiiyey maxaa laga filan karaa amaba aad ka filan kartaa arrintani haddii ay kugu dhacdo amaba jacaylkaa soo bandhigatay haddii uu fashilmo. balse haddii lagu dayriyo oo aan lagu dirnixin xaalkaagu sidee noqon doonaa? hawarwarin daawade, caawa waxaan ku haynaa 12 qodob oo noloshaada wax ka beddeli karaa haddii aad qaadato talooyinkani, waana hubaal in aad hanan doonto qofkaad jecelshahay qalbigiisa oo aadan marnaba la kulmi doonin niyajab iyo wax noloshaada burburiya. lambar 1, soo bandhigasho. ugu horrayn ha noqon qof ku degdega u bandhigidda amaba u gudbinta qofka uu jecel yahay fariintiisa jacaylka, yacni marnaba ha ku degdegin in qalbigaaga aad wada siiso qofkaad jeceshahay, sababtoo ah dhibaatooyin xooggan ayaad kala kulmi kartaa arrintani. 2, dabeecad. waa inaad tahay qof furfuran oo dabeecad wanaagsan leh, marnaba yaan lagaa dareemin wejiba cabuusnaan iyo in aad murugo u horseeddo qofkaad jeceshahay. midda kalena xisaabta ku darso, dabeecaddu waa qayb ka mid ah nolosha iyo dareenka dhabta ah ee jacaylka. 3, mar walba waxaa lama huraana inaad ahaato qof xishood badan oo xayada ha ka tegin, ee ahow qof xishooda oo xushmeeya qofka uu jecel yahay. xishoodkuna waa qayb ka mid ah iimaanka qofka islaamka ah. lambar 4, qurux. waa inaad tahay qof qurux badan oo soo jiidasho leh. quruxduna ma aha midda wejiga oo keliya, oo naftaada ha ku hallegin dawooyin noloshaada iyo caafimaadkaaga wax u dhimaya. ogsoonow, quruxduna waa qalbi nadiif ah iyo habdhaqan wanaagsan, waana sahal in aad soo xeerogeliso qofkaad jeceshahay haddii qalbigaagu uu nadiif yahay. lambar 5, xog ogaansho balwad. haddii aad tahay gabadh ama wiil, ku dadaal sidii aad ku ogaan lahayd qofkaad jeceshahay waxyaabaha uu xuseeyo amaba balwaddiisu ay tahay, adigoo aan weydiinaynin qofkaad jeceshahay, balse raadi waddo kale ood ku ogaan karto xogtani adigoo waraysanaya saaxiibkiisa ugu dhow. balwadduna soomaalidu waxay u taqaanaa maandooriyahe, xisaabtu taas ma aha, ee waa waxyaabaha uu ka helo cunno, talxiis, heeso, qur-aan, erayo jacayl ah iyo suugaan. waxyaabaha uu xiiseeyo ayaa balwad ah. lambar 6, sheeko. mar walba uga sheekee qofkaad jeceshahay waxyaabaha uu xiiseeyo amaba uu ka helo amaba ay ka hesho. haddii ay gabadh tahay, hanala soo hadal qaadin qofkaad jeceshahay sababaha xidhiidhkaagii hore uu burburay iyo waxyaabaha shakhsigii hore kuu samayn jiray, waayo taasi waxay dhabarjab ku tahay xidhiidhkaaga, ee taas ka digtoonow. lambar 7, xidhiidhin. qofkaad jeceshahay haddii uu kaa fog yahay amaba aad 2 waddan ku kala nooshihiin, sidii aad xogtiisa iyo xidhiidhkiisa mar walba aad kula heli lahayd, waa inaad xoogga saartaa oo mar walba telefoon kula hadashaa
amaba waraaqo iimayl iyo waxyaabaha internetka ah aad ugu dirtaa. haddii aad iskudal joogtaanna amaba aad ka wada shaqaysaan meelna waa inaad ku soo dhowaysaa weji furan oo farxadii ay ka muuqato, waayo xilliyada qaar fariimaha qalbiga ayaa ka qurux badan hadal walba oo lagu dhaho. lambar 8 qofka aad gacalooto haddii uu kaa fog yahay amaba aad wada joogtaan ka warqab oo mar walba la qaybso farxad iyo murugaba. xaalad walba oo noqo wehelkiisa dunida ugu dhow, waana sababta keliya ee aad qalbigiisa ku degi karto, waayo adigoo dhaawaca qof dhiig kuu shubay dadka wuu kaaga dhow yahay. lambar 9 noqo qof loo xiiso oo marka uu maqan yahay amaba lala joogo si aad ah loogu xiiso, lana imow sheeko, dareen, kalgacayl iyo farxad mar walba. lambar 10 ballanta waa inaad tahay qof mar walba ilaaliya ballanta. ballandaro waa diindaro ee iska adkee dhanka ballamaha oo qalbigiisa amaba qalbigeeda hajbin marnaba. lambar 11 ku dadaal inaad hadiyad u geyso qofkaad jeceshahay una hadiyeyso waxyaabaha uu xiiseeyo. ogsoonow hadiyaddu waxay qayb lixaadla ka qaadataa kobcinta jacaylka dhabta ah. lambar 12 haddii mar walba qofka aad doonayso dantiisa aad ka hormarsataada, qofkaasi wuxuu dareemayaa in aad tahay qof u khaas ah, isla markaasna si aad u tixgeliso qalbigaagana boos weyn ku leh. waana sababta keliya ee tixgelinta iyo xushmaddana ay ku dheehan tahay ee qofkaas si aad ku soo xirigelin karto. haddaba haddii aad qaadato 12 talo, waa hubaal qofkaad jeceshahay inuu si dhab ah dareen ugu geli karo amaba aad ku soo jiidan karto. hana ku degdegin marnaba in qofka markaad aragtaba markiiba aad tiraahdo waan ku jeclahay aan ku jeclaadee maxaad ugu jeclaatay. su-aashaa meel aad ka dhaafto marnaba ma heli doontid. like saar, sabscribe dheh, share dheh oo nagu soo biir. fi amaanillah.